madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Ka hor inta uusan soo gaarin madaxweynuhu magaalada waxaa lagu soo dhaweeyay magaalooyinka Dar es Salaam, Yagoori, Ari Cadeeye iyo waliba Tuulo Samakaaba. Waxaana ugu dambeyntii loo soo gudbiyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Madaxweynuhu waxa uu xadhiga ka jaray mashaariic dhowr ah oo xukuumaddu ka hirgelisay Laascaanood. wafdiga madaxweynaha waxaa ku wehelinayay tiro wasiirada oo hogaaminaya wasiirka madaxtooyada, warfaafinta, arrimaha gudaha iyo waliba caafimaadka. madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynaa gobolka Sool adiga iyo xukuumadda kula socota golaha wasiirada, maamulka heer gobol, heer degmo, ciidamada qaranka noocyada kala duwan, saxaafadda, dadweynaha sharafta halka fadhiya. inta kadib madaxweyne sida la sheegay sida laga dhawaajiyay isbitaalka waxa la dhisay 1946 maanta aynu ku jirnaa 2017 muddada inta u dhaxaysay waxaa tamasiilku ugu horeeyay ee nasiib u yeesho inuu isbitaalka dib u habeyn iyo dhismayaal cusub ku furo waana abaal aad gashatay shacabweynaha reer Somaliland gaar ahaan shacabka reer Sool. halkan ku soo dhaweynayaa oo mahad celinaya waxqabadkiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdiga ballaaran ee golaha wasiirada ay hogaaminayo oo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka madaxtooyada, wasiirka warfaafinta, biyaha, wasiirka caafimaadka oo runtii meel gaar ah naga yaala iyo saraakiisha ciidamada haday booliis yihiin iyo haday asluub yihiin iyo haday ciidamada militariga yihiin waxgaradka culimada iyo cuqaasha iyo dhalinyarada iyo bahda caafimaadka gobolka Sool iyo waxbarashada dhammaan guud ahaan gobolka Sool iyo Xaysimo ina gobola shacabkooda anigoo ku hadlaya waxaan mar saddexaad madaxweyne ku leeyahay ku soo dhawow waxaan idinku salaameynaa salaanta islaamka mar labaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa maanta sharaf weyn oo ah inaan ka soo qayb galno oo goobjoog ka ahaano furitaankii xarika jaristii cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood oo ah cusbitaal gobol iyo iskuulkii boardingka dugsiga sare. waa laba mashruuc oo waaweyn oo lacag badan ku baxday. barnaamijka la yiraahdo SDF ama Somaliland Development Fund ama sanduuqa horumarinta Somaliland baa hirgeliyay. sanduuqa haddana wax yar idinka taariikheeyo waa sanduuq ay lacagta ku shubaan wadamo deeq bixiyaal oo ku deeqa lacag lagu horumarinayo Somaliland. sanduuqa waxa wada maamula wadamada lacagta bixiya iyo dawladda Somaliland. lacagtii ugu horeysay ku soo dhacday madaxweynuhu isagoo og baahida ka jirta gobolada bariga siiba Sool iyo Sanaag isagoo ku dadaalayay oo ujeedadiisa ugu weyn ay ahayd inuu goboladaas soo gaarsiiyo gobolada kale waddanka ayuu madaxweynuhu wuxuu amray in mashaariicda ugu horeysa laga hirgeliyo labada gobol. baan idin salaamayaa bulshadana reer Laascaanood. aniga xusuuso gaar ah buu leeyahay cusbitaalkanu magaaladan aan ku dhashay waan ku koray anigoo yaroo kubadda balcaamadda iyo iskuulka ka dhigto Laascaanood wada dhagax bay beriga ahayd imka xogaa wadooyin wax yeelatay oo intaan kubadda cayaar faraha wada gooy jiray ciidaha naga soo dhici jiray marka waa meeshii ciidaha loogu dhayi jiray dawadan bakaankee madow ayay noo marin jireen oo aanu bataqaanaa infection ka laga biin jirtay. laba goorna waa la igu qalay berina kanaaca igu dhacday oo markaas aan dawada la siiyo furaashka hoostiisa ku qalisay waa dawada aad u qadhaareed marka ma cuni kari jiro markuu iga dhaqaaqo dhakhtarku ama ina ka haysanaya baan furaashka xaqiisa hoose gelin jiray hadhow waan daadin jiray. بالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله. هذه شرف وبيتها إن تعالك كان يمادو كسوة قيب كل حفلة تن حفلة تن كفرنا لاسعانو ريتشن هوسبيتال يا لاسعانو سكندري بودي سكول. مشاريع وين إن الدرب كان قلال وواجب أنا لقيت قليل وواجب مسارا وحنا كقبلنا وحنا كقبلنا أنتي كبعدنا وحنا كتر كنا دبونا كتر دونا. إن شاء الله waxaan ku rajeynayaa ilaahay mashaariicda uu guuleeyo ilaahay inuu guusheeda siiyo inuu meel wanaagsan mariyo mashaariicda fiican iyo mashaariic wanaagsan dambana oo sii wari doona oo sii furi doona aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum. Xamse Raadiye, RTN, Laascaanood.